madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Gullaw Xuseen ayaa waxaa loo diiday in uu booqdo degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. ciidamada Macawisleyda Maxaas ayaa waxaa lagu soo waramayaa inay Cali Gullaw Xuseen u diideen inuu booqdo degmada Maxaas xilli uu socdaal ku marayay deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan. bishii May ee sanadkan ayay ahayd markii sidaan oo kale hogaamiyaha maamulka Hirshabelle Cali Gullaw Xuseen looga hor istaagay inuu galo magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, halkaasi oo laga dhisayay maamul kale oo isaga ka soo horjeeda oo lagu magac daray Hiiraan State. waxaa muuqata inuu dib u bilowday guuxii Hiiraan ee maamulkiisa lagu dhisayay kadib markii ay sheegeen in nidaamkii lagu dhisay iyo hanaanka awood qaybsiga wax laga bedelay. arrintan ayaa imaanaysa xilli Cali Gullaw uu safar ku marayay deegaanada maamulka Hirshabelle gaar ahaan gobolka Hiiraan, isaga oona maalin ka hor gaaray degmada Moqokori ee gobolka Hiiraan xilli Hiiraan laga diiday in xukunka Cali Gullaw uu ka socdo. safarka uu ku tagay Moqokori ayaa waxaa ku helinayay madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabelle Yuusuf Axmed Hagar Yuusuf Dabageed, kaasi oo ka soo jeeda gobolka Hiiraan, halkaasi oo ay si weyn ugu soo dhaweeyeen gudoomiyaha iyo shacabka degmadaasi Moqokori. si gaar ah markii loo carbaabo beel ka mid ah beelaha degta gobolka Hiiraan oo la yiraahdo beesha Xawaale ayaa si aad ah u diidan in madaxweynahan uu halkaasi gaaro. madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Gullaw Xuseen uu ku dhiiraday in uu markaasi tago deegaano dhowr ah oo ay beeshaasi degto, taasi oo ay ka mid tahay Moqokori iyo sidoo kale deegaano kale oo aad u fara badan isla markaana Hiiraan ka tirsan. hase ahaatee waxaa muuqata in ka hortagiisaasi aysan waxba soo kordhin, iyadoo oona uu haatan wajahayo caqabado diidmo ah oo maamulkiisa kaga imaanaya halkaasi. beeshu waxa ay ku diidan tahay gebi ahaanba in aysan ka mid noqon maamulka Hirshabelle, waxaana ay kolkii sii horreysaba ku dhawaaqeen maamul kale oo ay ugu magac dareen Hiiraan State. isku soo wada duuba xiisada maamulka ee Cali Gullaw iyo reer Hiiraan ayaa gaartay heerkii diidmada in maamulka Hirshabelle uu canshuur ka qaado gobolka Hiiraan, inkastoo uu maamulku wado dadaallo uu rabo inuu hoos ugu dhigo xiisada taagan, kuwaas oo aad moodo in ay ba socon la yihiin haatanba sida muuqata.